kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali News Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn siyaasiyiin la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya gorgortan kala galayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab maxay yihiin siyaasiyiintaas maxay sarabaan inay madaxweynaha kala gorgortamaan muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa gaadiid iyo ciidamo fara badan ayaa gaaray deegaanka iyo Sooman halkaas ayayna ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo al-shabaab meeqa kiiloomitir ayuu u jiraa deegaankaas ayaan kula wadaagi doonaa daawade balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka la gareyso sidoo kale aad share gareyso subscribe-na saarato si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena waa hagaagan ku bilaabo siyaasiyiin la sheegay in madaxweynaha gorgortan kala galayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadoo qaybo badan oo kamid ah gobolka Hiiraan ay ka socdaan dagaallo iyo howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay jiraan siyaasiyiin xagal daacinayo howlgallada dalka looga saarayo al-shabaab xildhibaan Maalig Cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee qaybta ka howlgallada ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin madaxweynaha kula gorgortamaya in la siiyo lacag iyo xilal si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in dadka siyaasiyiinta ee qorshahaas wada aysan ahayn Amazon oo lacag ka qaadata dalka asagoo oo sheegay inaan laga aqbali doonin una socon doono dagaalka loogu soo horjeedo ururka al-shabaab ugu dambeyntii xildhibaan Maalig Cabdalla waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan aysan jirin cid ay duulaan ku yihiin balse gobolada la diriska ay siyaasiyiinta ka soo jeeday shuruud ku xireen goobaha ay al-shabaab ku weerari doonaan waxaa nasiib darro ah in shakhsiyaad siyaasiyiin ah ama sheeganayo mas'uuliyiin inay madaxda dawladda federaalka ay kula gorgortamayaan in ama lacag la siiyo ama xilal loo magacaabo si ay ugu biiraan dagaaladan socda ee lagula dagaalamaya argagixisada anigu waxaan isweydiinayaa dadkaas waxay ismoodeen Amisom dalkan lacag ku qaadato dalkan mas'uuliyad ayaa naga saaran in dagaalkan aan u soo wada jeesano dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ku dhiban yihiin marka anigu waxaan fariin u dirayaa dadkaas inaan marnaba laga aqbalaynin lagana socon doono sidoo kaleeto sida aad la socotaan mar walba dagaaladan hadda gobolka Hiiraan way ku soo noqdeen taasna waxa ku ah in cadawga marka meel laga saaro tuulo diriska ay tagaan ee xaggaas ka soo abaabulaan maanta laga bilaabo meel walba ay iska abaabulayaan waa ugu daba tagi doonaa fariintaas dadka aan dagaalka ku jirin inaan u sheegnaa rabnaa annaga maadaama aan reer Hiiraan cid aan duulaan ku nahay ma jirto cid aan rabna dhul inaan ka qabsanno ma jirto laakiin cadawga meesha laga soo abaabulayo haddii ay diideen walaalaheenii diriskana la ahay ay madaxdii ku xujeynayaan lacag iyo mansab in la siiyo annagu waan gelaynaa waan ugu daba tegaynaa waa wallaahi billaahi tallaahi dadkeenna ku baaba'ayo mana yeelayno dagaalka la soo wada galo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalka xildhibaan Maalig Cabdalla ayaa abuuray tuhun hor leh siyaasiyiintaas maxay ka damacsan yihiin in waqtigan uu dalku ku jiro dagaal ay gorgortan la galaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kol hore sheegay inuusan la gorgortami doonin cid kasta xildhibaan ha ahaato wasiir ha ahaato oday ha ahaato dhalinyaro ha ahaato inuusan gorgortan la geli doonin cid kasta oo xagal daacinaysa dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray inuusan la fadhiisan doonin odayaasha iyo xildhibaanada iyo wasiirada kuwaas oo doonaya inay xagal daaciyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray inay ka go'an tahay inay al-shabaab ka saaraan guud ahaan dalka balse maalmo kadib xildhibaano wasiiro iyo odayaal doonaya inay madaxweynaha gorgorta la galaan ayaa soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigaha ka fureystay maadaama uu hadalkiisii horeyba ku sheegay inuusan aqbali doonin inay xagal daacin ku sameeyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqday mid dhigaha ka fureysan doona hadalkaas sidoo kalena sii wadi doona dagaalka waxa uu lacag fara badan ku bixinayaa sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka balse lacagta la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bixinayo kuma bixinayo dadka gorgortanka la gelayo inay madaxweynaha lacag ka qaataan amba sidoo kale ay xilal weydiistaan ee wuxuu ku bixinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macaawisleyda
oo howlgallada ka dhanka al-shabaab ka wada meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta u duulay dalka Itoobiya waxa uu halkaas ka doonay lacag taas oo lagu taageero howlgallada ka socda Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kala hadli doonaa sidii uu taageero dhaqaale u sii lahaa Soomaaliya. waxa uu halkaas ra'iisul wasaaraha ka soo qaadi doonaa hub iyo sidoo kale saanad military. guluf dagaal oo hor leh ayaa bilowday inkastoo uusan dardartii hore ku socon haddana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa doonaya inay ka faa'iideystaan kacdoonka shacabku ay wadaan sidoo kalena ay cirib tiraan ururka al-shabaab. dhanka kale ciidamo fara badan oo ay hogaaminayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku biiray dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waxa ayna gaareen furumaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. xildhibaanada hogaaminaya ciidamadaas waxaa ka mid ah xildhibaan Yaasiin Faray, xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul iyo Generaal Tredisho iyo sidoo kale Generaal Gacmo Dule. saraakiishaas iyo xildhibaanadaas ayaa ku beeray dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waxa ayna gaareen magaalo xeebeedka Cadale waxa ayna sheegeen inay gaari doonaan degmooyinka Ceeldheer iyo sidoo kale Galcad ugu dambeyntiina Cadale ay ka soo hadli doonaan. xildhibaan Xusul oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirka jaraa'idda xiga ay ku qaban doonaan magaalada Xaradheere ayna guud ahaan cagta mari doonaan wixii ka hor yimaada. xildhibaan Yaasiin Faray oo asuguna dhankiisa hadlay ayaa wacad ku maray inay ku biiri doonaan dagaalada socda waxa uu sheegay inaysan ugu sawir ahayn oo la gaaray xaaladii ugu dambeysay ee lagu duuli lahaa. dhanka kale ciidamo fara badan iyo gaadiid ay wataan ayaa gaaray deegaanka iyo Sooman oo shalay ay ka dhaceen dagaallo. dhaqdhaqaaqyo ayay halkaas ka bilaabeen waxa ayna rabaan inay deegaankaas ammaankiisa si weyn u xaqiijiyaan maadaama al-shabaab ay mar hore soo weerareen. xildhibaan Sambalowshe oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan jiidda hore ee dagaalka in dagaalka al-shabaab shalay lagu galay deegaanka iyo Sooman ay jab xoogan ku gaarsiiyeen. gaadiidka iyo ciidamada gaaray deegaanka iyo Sooman ayaa ku biiraya kacdoonka shacab oo ka bilowday gobolka Hiiraan. ciidamadan oo la sheegay inay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb ayaa gaaray deegaanka iyo Sooman waxayna durba bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana magaaladaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan kuwaas oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka. Cabdiraxmaan Dheere oo ka tirsanaa tiimka Nabad iyo Nolol sidoo kalena ahaa gacanta midig ee Fahad iyo Farmaajo ayaa maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee dalka Kenya. dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya oo xiriirkooda uusan wanaagsaneen xilligii ay kala hogaaminayeen Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ciil ay aruurinayeen dowladda Kenya waxay maanta kala dul dhaceen Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacanta midig ee Fahad iyo Farmaajo. Cabdiraxmaan Dheere oo ka cararayay Xamza Cabdi Barre oo ku wajahnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa u soo cararay dalka Kenya balse Kenya ayaa ku kacday go'aan lama filaan ah oo ahaa inay Cabdiraxmaan Dheere qabato dibna ugu celiso dalka Itoobiya. Cabdiraxmaan Dheere oo ahaa gacanta midig ee Fahad iyo Farmaajo ayaa lagu qasbay inuu soo dhaweeyo Xamza Cabdi Barre waxaana lagu arkayay safka hore ee Xamza Cabdi Barre lagu soo dhaweynayo. dadka odorosa arrimaha siyaasadda ayaa tan ku sheegaya inay tahay kufri siyaasadeed maadaama Cabdiraxmaan Dheere oo ahaa gacantii midig ee Fahad iyo Farmaajo ay maanta dowladda Kenya dib uga celisay dalkeeda dibna ugu celisay dalka Itoobiya. intaas ayaan jecelahay inaan ku soo afmeero barnaamij sureedkeenan ee waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ha ilmaamin inaad sheer gareyso oo leeg gareyso subscribe-na aad saarato mahadsanid.